halkan waxaynu ku duubaynaa barnaamij cilmi baadhis higaada dhawaqa iyo dhigmada af Soomaaliga. Dhawaqa, dhigmada iyo dhismaha afka hooyo. Qaybta labaad waxaynu kaga hadlaynaa 20 shaqal dheere ee af Soomaaliga ku jira. Bogasho wacan iyo kulan kale. Afka Soomaaligu wuxuu leeyahay 20 shaqal dheere, inkastoo dadka qaarkii aanay u aqoonsanayn inay jiraan. Waxaynu isku dayaynaa inaynu si ballaaran uga hadalno. Dhawaaqyada shaqalada ee afka ku jira waxay inoo qabtaan shaqooyin badan oo aynaan garanaynin. Haddaba kala garo shaqalada dheer ee afka ku jira ee 20 ah. Soomaaligu wuxuu la wadaagaa afafka codadka aanay iyagu wadaagin. Haddaynu eegno sawirkan oo laatiinaya iyo sawirkan oo ah dhawaaqyada afka Carabiga, waxaa jira meelo kala gaara inuu codka ama dhawaqu ka soo baxo, kuwaas oo ay ku kala duwan yihiin iyagu, laakiin af Soomaaligu uu mid walba la wadaago. Tani waxay ku tusaysaa in af Soomaaligu dhawaaqyadiisu ka badan yihiin kuwa ay adeegsadaan afafka kale. Dhawaqa shaqal dheerayaasha afka Soomaaligu waa 20. Dhawaqa 7 shaqal dheere waxay ka dheegmaan 2 shaqal gaab oo kulmay. Si aynu u kala garanno kala duwanaanshaha shaqalada, waxaynu adeegsan doonaa midabka iyo xariijin hoose. Maadaama aynaan lahayn sumado kala duwaya oo aynu adeegsano hadda, waxaynu isku dayaynaa bal inaynu midabkooda muujino iyo xariijin hoosta aynu ka marino. Habkani wuxuu inoo iftiiminayaa inaynu si cad u kala garanno jiritaankooda iyo faa'iidada ay leedahay. Xusuus dhigmada habboon ee shaqal gaabka. Aynu marka hore wax ka taabanno codadka shaqal gaabka ee fudud iyo culayska keena. Dad waa dadka, dad waa dadista, hel, cir, hir, hod ama hodan ka dhig, hod waa lugoynta, sug waa sugidda, sug waa sugidda marka cid imanaysa aad sugto. Waxaynu aragnaa kuwa midabka buluugga lehi ay yihiin codadka fudud ee shaqalada ama shaqal gaabka, kuwa midabka guduudka lehina ay yihiin codadka culus ee shaqal gaabka. Taasi waxayna tusaysaa inaynu leenahay sida afafka kaleba u leeyihiin cod shaqal gaaba oo culus iyo mid fudud. Afafka intooda badan way leeyihiin waanay muujiyaan. Haddaynu tusaale soo qaadanno afafka wadamada Scandinaviga lagaga hadlo, dhammaan way wada leeyihiin cod fudud iyo cod culus oo shaqalada. Waana kala duwan, way kala qoraan, ereygoodana si sax ah ayuu u dhawaaqaa, qormadiisuna u timaada. Ma jirto sabab aynu nidhaahno codka af Soomaaliga shaqal gaabka culus iyo fudud ma la kala qori karo.
taasi waxayna tusaysaa inaynaan aqoon badan u lahayn kala saaridda dhawaaqyada iyo habka loo dhigo ama loo qoro afka. Aynu isku dayno haddaba shaqallada 20 ah. Shaqalka aynu aan nidhaahno ama oo aynu u qoranno shaqal dheere keliya. Waxaad arkaysaa haddaynu adeegsano midabyada oo casaan iyo buluug ah, shaqal dheere fudud, koran, buluug, xariiqin. Taasi waxaynu eegaynaa bal codadka sidaa u dhawaaqa. Haddaad tidhaa saarka, waa cod fudud oo shaqal dheer ah, xariijin baynu hoosta ka marinay kuwa kacaya. Faalka, shaqal dheere fudud, hoosan ama hoos u dhacaya. Haanta, laabta, shaqal dheere culus, koran ama kor u kacaya. Daalka iyo saadka, shaqal dheere culus, hoosan ama cod hoos u dhacaya. Daanta iyo waaxda. Waad aragtaa inay kala duwan yihiin 4 cod, midba uu si gaara u socdo. Dhugo 4 dhawaaq ee shaqal dheere ee haynu adeegsano midabyada casaan iyo buluug. Shaqal dheere fudud, koran, ceelka, beerka. Shaqal dheere fudud, hoosan, ceebta, beerta. Shaqal dheere culus, koran, geedka, dheega. Shaqal dheere culus, hoosan ama hoos u dhacaya. Deebta iyo geesta. Waad aragtaan inay kala jaad yihiin dhammaantood. Shaqal dheeraha haddaba aynu adeegsano midabyada casaan iyo buluug. Shaqal dheere fudud, koran, ciilka, tiirka. Shaqal dheere fudud, hoosan, ciirta, liinta. Shaqal dheere culus, koran, diinka, wiilka ama hiilka. Shaqal dheere culus, hoosan, diinta, hiirta. Shaqal dheerayaasha oo haynu adeegsano midabyada casaan iyo buluug. Shaqal dheere fudud, koran ama kor u kacaya. Xoorka, foolka. Shaqal dheere fudud, hoosan, qoonta, koorta. Shaqal dheere culus, koran, doogga, xoogga. Shaqal dheere culus, hoosan, doogta, foodda. Shaqal dheerayaasha aynu adeegsano midabyada casaan iyo buluug. Shaqal dheere fudud, koran, suunka, buulka. Shaqal dheere fudud, hoosan, xuurta, kuusha. Shaqal dheere culus, koran, guurka, tuugga. Shaqal dheere culus, hoosan,
guunta, tuugta. aynu u fiirsan haddaba shaqal dheerayaasha aynu 20 ka dhignay. waxaa jira qaar badan oo ka yimaada 2 shaqal gaab oo israacay ama xidhiidhay. haddaynu eegno ereyga cir iyo dul, waxaa ku jira 2 shaqaloo i iyo u ah. labada shaqal i wuxuu noqdaa erey oo qofka marka wax lagu falaayo, oo i tuuray oo kale. u waa meeleeye, iyadoo dhawaq ah ay haddana erey noqota. marka waxaad aragtaa i iyo u fududi inay yihiin 2 shaqal. hadday israacaan i u ayay noqdaan, marka ii ayay sameeyaan. waxay la mid tahay codka uu sameeyo ereyga ciir oo kale. haddaynu eegno labadan erey cir iyo hir, waxaa ku jira 2 shaqal oo i ah oo midna fudud yahay midna culus yahay, sida cir oo fudud iyo hir oo culus. hadday israacaan waxa ay sameeyaan shaqal dheere dheega oo noqon kara sida ereyga tiir. sharaxa waynu geli doonaa sababta ay ku yimaadaan. haddaad tidhaa cc iyo haddaad tidhaa cc, waa 2 hadal oo kala duwan. cc haddaad tidhaa waxa weeyaan waxaa marar badan cc waxa weeye qofka raashin la siinayo, leeda haddaan tago cc ama hadhow cc inta aan maqanay. haddaad tidhaahdo c ama bakti, waxaa ku jira cod dheeroo i ah. c bakti, labada shaqal ee u dambeeya waa isku mid, sida c iyo bakti. c bakti waad aragtaa inay i iyo i kala duwan yihiin cod ahaan. haddaynu haddaba soo qaadano falalka adiga kugu socda ee falma gudba aynu nidhaahno, haddaad ku darto shaqalka culus ee i, waxay sameeyaan falku inuu noqdo fal aad cid kale kusii samaynayso. kor waa weynow, kori i markaad ku darto cid kale ayaad korinaysaa, markaa kor kori. aynu eegno fal kale. bakti waa fal adiga kugu socda oo aan ku dhaafayn, waxaana ku dhammaadaa shaqal fudud oo i ah. haddaad ka dhigayso mid aad cid kale ku falayso, bakti i ayaynu nidhaa. hadalkeenna markay labadaa i israacdo waxay keenaan bakti. waad aragtaa labada shaqal ee i fudud iyo i, hadday isdaba galaan inay keenayaan i, taasoo la macnaa dhawaqa uu keeno tiir oo kale oo aynu horey uga soo hadal. haddaba shaqalka i fudud hadduu u raaco i ayuu ku tusayaa inaynu helayno. hadduu i iyo i la israaciyana inay tiir ama i ay noqonayso, sida aynu tilmaamahan ku aragno. u bakti haddaynu nidhaa waa meeleeye ku socda cid oo loo baktinayo. u bakti i u bakti meeleeyihii u ahaa marka uu ka horeeyo i shaqal ah
ama erey ah i oo adiga wixii kugu socdaa. I u bakti waxaynu nidhaahnaa ii bakti. I maaha wax jira sideeda, laakiin waxay ka timaadaa labada erey marka istaba galaan ama labada cod marka istaba galaan. taasi waxay diidaysaa inaynu laba erey oo kala jaada aynu isku dhex qorro, inuu cod kale u qorro, laakiin sidooda inay u kala qornaadaan waa sharciga dhigaya. marka i u bakti waxay keeneen i iyo i. taasi waxay ku tusaysaa inay jiraan shaqallo dhaadheer oo ka yimaada shaqallo gaaban oo kulmay. way jiraan qaar kale, laakiin tan waxaynu u soo qaadanay inaynu tusno in i iyo i ay yihiin waxaan isu dhoweyn. midi uu noqdo erey, midka kale uu falalka qaar ka dhigayo falal cid kusii samayso. marka ay kala qoran yihiin ama aynu kala garanayno siday u saameeyaan ereyada iyo naxwaha, waxay noqonaysaa inaynu si fiican u fahanno qoritaanka afkeena. haddaad tidhaa ii bakti, waa ii iyo i. waxaad arkaysaa codka inuu qaar hoos u dhacayo iyagoo shaqal dheera, qaarna kor u kacayo. si waad aragtaa inay kala duwan yihiin si iyo si. kulanka laba shaqal gaab, waxaa jira qaar kale oo iyaguna kulma. shaqal gaabku waxay noqdaan erayo sidooda u taagan, waxay abuuraan shaqal dheere dheeg ah, shaqal dheere aan marka hore jirin, laakiin hadday labadaasi kulmaan samaysmaya. waa waxyaabaha afka soomaaligu uu dheer yahay afafka kale ee aan ku tusayn haddii shaqaladoodu kulmaan ama halkay ka yimaadeen ama israhan siday ku abuurmeen. waxay jideeyaan in degmada ereyga iyo dhawaqu kala madax bannaan yihiin. ereyada aynu soo aragnay oo qaarkood ay dhawaq cod shaqal gaab ah yihiin inay haddana erey noqdaan. taasi waxay ku tusaysaa inaan loo baahnayn inaynu isku mirqino ama isku dhex khaladno qoraalkooda, laakiin ay noqdaan erey weliba isagoo dhawaqa ama shaqal keligii ah uu haddana qormi karo erey ahaan. waana sharciyada afka. waxay ka qayb qaataan dhismaha naxwaha iyo dhigmada ereyada. waynu arkaynay kor kori inay noqotay, duul duuli, ereyo badan oo sidaas ah oo falalka adiga ku socda markaad cid kale ku falayso. haddaynu eegno ereyadan i u tuuray, i u tuuray waxay keenaysaa inay isu beddesho cod ahaan ii tuuray. maaha inaynu isku dhex qorno, laakiin codkooda hadday istaba galaan inaynu cod ahaan ugu dhawaaqno, laakiin qoraalkooda uu kala gaar noqdo. na u tuuray, wuu noo tuuray, wuuna tuuray ama na u tuuray haddaad tidhaahdo waxay ku tusaysaa na u tuuray ama xaggayagu u tuuray inay tahay noo tuuray ay dhawaqa, oo aynu fahmayna in annaga wixii naloo soo tuuro ay noqoto noo tuuray. ku u tuuray hadday daba galaan laba u, waxaynu u dhawaaqnaa kuu tuuray. waa laba erey oo kala jaada, laakiin isdaba galay. maaha inaynu isku dhex qorno. ma aanu an markaad leedahay waxaad u qortaa ama u dhawaaqdaa ma aanaan. aantaasi
u aantaas ayaa keentay oo u iyo a markay isdaba galaan a ayaynu ugu dhawaaqnaa. waxaynu haynaa 4 dhawaaq oo shaqal dheere fudud ah: i, o, u iyo a. waxay ka yimaadeen dhawaaqyada ereyada isku dhacay shaqaladii isxigay. haddaad eegto bakti, marka aynu i ku darno bakti ayay noqotaa oo bakti waa dhawaqa shanaad ee shaqal dheerayaasha. haddaynu halkaa kaga gudubno waxaynu arkaynaa i u bakti inay tahay ama u dhawaaqayso i bakti. ereyadu way kala qormayaan laakiin dhawaqu sidanuu u dhawaaqayaa: si, i bakti, i u bakti. afkeenna ama alfaabeetka aynu u baahanay inaynu adeegsano. dadka cilmi afeedka aqoonta u lihi waxay qiraan in wax badani ka dhiman yihiin toosinta dhigmada afka Soomaaliga. miyaanay ahayn inaynu saxno khaladka aynu isla qirno ee ah in afku horumarin u baahan yahay? miyaana ahayn in dhawaaqyada afkeenu leeyahay ee aynu isku dhex millo aynu si cad u kala saarno oo sax u qoranno afkeena? miyaynaan u baahnayn in afkeenu noqdo af hab cilmiyeysan loo barto oo la barbar dhigi karo afafka dhigmadooda iyo naxwahoodu fadhiyo? dadka isku daya inay afka Soomaaliga bartaan waxay la kulmaan dhib, maadaama aanay jirin aqoon sheegaysa heer la raaco marka ereygu isbedelo dhawaqa uu yeelanayo, iyo naxwaha oo aynaan sharax fiican ka bixin aqoon darro awgeed. shaqal dheeraha waa kuwan hadda aynu ka hadlaynay: diphthong ama shaqal huwanka kuwa la yidhaahdo oo diphthong soundska, oo a iyo ay iyo aw kuwa sidaasa u dhawaaqa. shibanayaasha iyagana waynu ka hadli doonaa. alfaabeetka afkeena miyaan ahayn haddaba inaynu si saxa ugu hadalno ama u qoranno? dhigmada afkeena ma saxnaa? waa su-aal taagan. af hooyo, alfaabeetka afafka sida ay yihiin ama afafka dunida ee qoran waxay leeyihiin alfaabeet, dhawaaqyo iyo sumado isleh oo sumadu magac ay leedahay, codna ay u taagan tahay. afka carabiga, afka ruushka, afafka laatiinka sida ingiriisida waxay leeyihiin sumado iyo codad la isu sidko, laakiin sumaduhu mid waliba magac bay leedahay waanay xidhiidhaan. afka Soomaaliga dhawaqa aynu taxnaa maaha alfaabeet. u fiirso sawirkan, waa wax la ysdaba dhigay codadka shibanayaasha, shaqalgaabka, yacni waad aragtaa sumadaha qaar inay 3 iyo 2 jeerba soo noqonayaan. codadkaynu taxnaa inta aynu ka naqaan, laakiin maaha alfaabeet jira. kani waa codadkii oo aynu tirinay inta aynu naqaan ama aynu aragnay inaynu garanayno. afafku sidaa uma adeegsadaan alfaabeetka
tanina maaha alfabeet waa codadka aynu naqaan ama aynu nidhaahno waynu adeegsanaa. waa aqoon darrada badan ee ina haysa. af hooyo alfabeetka aynu u baahanay inaynu adeegsano. haddaad eegto alfabeetka aynu nidhaa waynu adeegsanaa, caalamku sida ay u qortaan ama laatiinka waxaa loo qoraa sumado isdaba yaalla. haddaynu eegno 9 sumadood ayaa halkan kuwa casaan iyo caddaan ah. 5 ka midii waa caddaan, waa kuwa aynu u baahanay matalan inaynu u qaadan karno shaqalada fudud ee afka Soomaaliga ku jira. 4 guduudka waa kuwa aynu u qaadan karno inay noqdaan shaqalada culus ee afkeena ku jira. waxaa ka maqan 3 sumadood ee p, v iyo z, kuwaasi oo ah kuwa aan afkeena lagu darin ama ka maqan, halka aynu sumadaha qaar intaynu isa saarno aynu cod ku samayno. waynu u baahanay maadaama ay ku jiraan alfabeetkii oo laatiinka ahaa ee aynu qaadanay, waana sababaha loo rabo inaynu soo yarayno sumadaha aynu isa saarno. haddaad eegto 5tani waxay noqon karaan kuwa shaqalka fudud, 4tani waxay noqon karaan kuwa shaqalada culus aynu adeegsanayno. kulan 2 shaqal gaab, saarka, haanta, daalka, daanta, ceelka, ceebta, geedka, deebta, ciilka, ciirta, diinka, diinta, xoorka, qoonta, doogga, doogta, suunka, xuurta, guurka, guunta. waxaad aragtaa kuwan hadda calaamada dusha ka marsanta inay yihiin kuwa ka yimaada dhawaaqyo israacay ama 2 codoo shaqal oo gaagaaban. alfabeetka aynu u baahannahay inaynu adeegsano dhigmada afkeena ma saxnaa. ereyadii ama shaqal dheerayaashii sida saarka, haanta, daalka, daanta, ceelka, ceebta, geedka, deebta, ciilka, ciirta, diinka, diinta, xoorka, qoonta, doogga, doogta, suunka, xuurta, guurka, guunta. 20 shaqal dheere ee kala jaadka ayaynu leenahay. hase ahaatee mid walba 4 baynu is-hoosgelinaa aan islahayn, una baahan in la kala saaro si afkeena aynu u saxno oo ka dhigno af la baran karo, si caadiya loogu hadli karo, la higaadin karo, maadaama ay jiraan dad badan oo afka danaynaya.
taasi waxay ka dhigaysaa in afkeennu uu la mid noqdo meeqaamka afafka reer ay joogaan ama haybadda ay leeyihiin marka la baranayo. waa kuwa codadkooda ay ka yimaadaan laba shaqal gaab oo israacay. waxaynu intaa ku dhammaynaynaa cilmi baadhistan ka hadlaysay shaqallada dhaadheer ee afka Soomaaliga. Ammaano Eebe iyo kulan kale.